war-saxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay xaaladihii ugu dambeeyey dalka ka dhacay. marka hore aad iyo aad aan uga xunnahay wixii dhacay. dalkan wuxuu soo maray dhibaatooyin fara badan oo ku aadan arrimaha siyaasadda. marxaladdii ugu dambeysana waxaa lagu jiray doorasho lagu soo heshiiyey oo muddo soo socotay oo xildhibaanada qaar ay soo baxeen. annagoo dhan waxaan quudaraynaynay in la saxo doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin hufan, cadaalad ah, lagu kalsoonaa karo, natiijo wax ku ool ah oo keeni karta qarannimada Soomaaliya ee dowladnimadu inay hore u socoto inay ka soo baxdo. laakiin nasiib darro wixii dhacay shalay waxay ahaayeen wax aad iyo aad looga xumaado. ra-iisul wasaarihii loo xil saaray doorashooyinka inuu qabto in la isku dayo si sharci darraa shaqada in looga qaado, xafiiska laga xirto, loo adeegsado awood ciidan, waxay noqotay arrin runtii aan la filaynin, aad iyo aad u xun. taas marka waxaan la wadaagaynaa dadka Soomaaliyeed meel joogaanba iyo adduunkaba inaan aad iyo aad uga xunnahay, ayna tahay tilaab aan sax ahayn, ka weecatay sharcigii iyo dhaqankii wanaagsanaay ee dowladnimada. intaas markii aan ka gudbo, marxaladda hadda la joogo waa marxalad aad xasaasi u ah, u baahan siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed iyo adduunka inta gacanta siisa Soomaalidaba inaan awooddeena isugu geyno dhammaystirka doorashooyinka, lana saxo khaladaadka ka jira iyo mugdiga. taas waddo aan ahayn oo furan ma jirto. waddo kasta oo taas ka soo hartana waxay horseedi kartaa burbur iyo dhibaato. diyaarna u maaha dadka Soomaaliyeed inay mar kale galaan mugdi siyaasadeed iyo dhiig daata. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa quluubta inuu hanuuniyo, dariiqa wanaagsan ku hanuuniyo. dadka Soomaaliyeed maanta waxaad ogtihiin amni darro, gaajo iyo macluul iyo abaaro, maxaan ku idhahdaa kala qaybsanaan, cudurkaas maanta covid-ka ah oo cid ka warhaysa aysan jirin, si gaara uga warhaysa, si gaara ugu dadaalaysa aysan jirin, ayay la daala dhacayaan. marka waxaan rabnaa inaan soo jeedino in madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhuba ay dardar geliyaan arrimaha doorashooyinka, tabashooyinka iyo mugdiyada jirana la saxo, horena loo socdo. arrinta labaadna waxa waaye dadka Soomaaliyeed maadaama ay macluul adag ay jirto, in loo istaago ayagana sidii dadka tawaalaysan loo gargaari lahaay, dadka waxhaystana ay gacan uga geysan lahaayeen, dadka wejigale wejigooda uga gedi lahaayeen, adduunkuna ugu soo gurman lahaay. waxaan rabaa sidaas oo kale in ciidamada qalabka sida oo loo barbaariyey ama loo abaabiyey inay ka difaacaan dalka cadowga, dadka Soomaalida ay difaacaan, ay ka shaqeeyaan sarreynta sharciga iyo cadaaladda, inaan loo adeegsan siyaasad iyo dana gaara, oo ay ku ekaadaan wixii loo aasaasay, ilaaliyaan sharciga, dhowraan sharciga iyo mabaadi'da dowladnimada, aysan ku milmin maxaan ku idhaahdaa siyaasadda. ciidan shacabkiisa la diriray waa ognaha meesha uu ku dambeynayo. marka waxaan leenahay Soomaali haddaana maanta waxaan khibrad u leenahay waa khalad siyaasi oo dhaca iyo ciidankoo loo adeegsado dana siyaasadeed oo lagu dhibaateeyo shacabka meesha uu ku dambeynayo. marka ayagana waxaan leenahay ilaaliya sharafka dadka Soomaaliyeed iyo karaamadooda iyo wixii aad u dhaarateen oo dhaxanta aad u jiifateen, qorraxda aad u joogteen, aad u dhaawacanteen, saaxiibadiina ay u dhinteen, ilaaliya oo ah inuu sarreeyo sharciga, amnigana la ilaaliyo. waxaan ognahay xilliyadii la soo dhaafay ciidanka qalabka sida in loo adeegsaday siyaasad aan loo adeegsanin wixii loo abuuray oo ahaaday cadowga al-shabaab oo naafeeyey horukaca iyo horumarka dalka in lagu waajaho, ayadoo dhaqaalaha iyo juhdiga ku baxaya in laga qaado shacabka Soomaaliyeed in adduunka ay ku deeqaan. runtii waa nasiib darro in weli loo adeegsanayo ciidamada qalabka sida siyaasad iyo cadaalad darro iyo dulmi in la hor istaago doorashooyinka. waxaan rabaa inaan uga gudbo madaxweynaha xilligiisu dhammaaday, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dadka Soomaaliyeed waxay ku muujiyeen kalsooni, waxay ku siiyeen codkoodii, waana lagula shaqeeyay intii karaan ah. doorashada hadda socota qayb ayaad ka ahayd,
adaa hogaaminayay oo soo saxiixday raalliyaad ku ahaaday adoo raalli ayaad ku wareejisay baarlamaanka hortiisa waxaad ku wareejisay ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaruhuna inta aan ognahay wuxuu ku mashquulsan yahay hirgelintii wixii loo xil saartay oo ah doorashooyinka inuu hirgeliyo marka waxaan ku leenahay u daa ra'iisul wasaaraha shaqadiisa ha ka faragelinin xilligaaga waa dhammaaday dadka Soomaaliyeed iyadoo xilligaaga dhammaaday inay kula shaqeeyaan oo ay ka aamusaan ay goosteen marka ku darsanin ina adiga cid kale sharci darro xafiiska uga qaado maanta waxa ku banaan waxa waaye ra'iisul wasaaraha inaad ku garab siiso doorashooyinku inay dhacaan maanta qofka kursiga fadhiya wax alla wixii doorasho u baahneed heli kara waa adiga marka inaad doorashada hor istaagto waa nasiib darro waana waxaan la filaynin dad murashaxiina oo adiga kula mida oo dalkan soo hogaamiyay raba inay hogaamiyaan ayaa banaanka jooga oo doorashada aan qayb ka ahayn waxayna ku qanceen inay doorashadaas ka qayb qaataan marka waxaan ku leenahay carqaladda ka daa doorashooyinka labo ciidamada qalabka sida ha u adeegsanin siyaasad in badan aad soo samaysay waa lagu soo dadaalay meelaa la soo gaarsiiyey wiilasha dhallinyarada ee hamiga u leh inay dalkooda u adeegaan ha marin habaabinin sidaasoo kale ummadda Soomaaliyeed maanta hami waxay u leedahay inay ka gudubto marxaladda adag oo aysan ku laabanin marxalad mataqaanaa dhiig oo daato ayadana sabab ha u noqonin intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa dowladnimada Soomaaliya sida u jilcan tahay inaan wax dul istaago tilaabtii shala dhacday waxaad garan kartiin waxa khalal dowladnimo ay dhalisay sanadkii la soo dhaafay hay'adaha dowladdu maalinta ka dambaysa waa si wiiqmayeen laakiin maalinta ka dambaysa marka siyaasiyiintu ay qaadaan tilaaban wanaagsaneyn waxa dhacay ciidamadu inay kala furmaan taasna waxa waaye hareer marka sharciga la hareer maray waxaan rabnaa dalkan inuu noqdo dal ku dhisan sharci dal ku dhisan doorasho xor oo xalaala dad ku dhisan cadaalad inuu noqdo taas ma aha mid laga tanaasuli karo madaxweyne aan looga tanaasuli karin ra'iisul wasaare aan looga tanaasuli karin baarlamaan aan looga tanaasuli karin cid walba oo isku dayda inay hor istaagtaan looga tanaasuli karin marxaladda dowladnimadu waa marxalad soo dhismaysay maalin walbana dadka Soomaaliyeed waxay helayeen khibrad dowladnimo oo keenaysa inay ku far adeegaan sharciga marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay ku far adeegaan sharciga doorashadana la xoojiyo cid kasta oo dariiqaan ahayn rabta inay marsiisan in laga wada hor yimaado ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ugu baaqo dowladaha daneeya Soomaaliya oo garab istaagay ayagoo mahadsan dalkan waxaan rabnaa inuu noqdo dal dimuqraadi ah waxaan rabnaa dal si nabada isu doorta si nabada xilka isugu wareejiyo inuu noqdo